بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u mahad celinayaa ciidamada qalabka sida saraakiisha hogaaminaysay bahda saxaafadda xildhibaanada iyo wasiirada laga bilaabo shalay halkii saac ilaa ma iyo waqtigan waxaa magaalada Gurceel ka socda howlgal emergency ah howlgalkaas oo ciidamada dawladdu ay ku raajoogaan ama ay ka baacsanayaan nimanka nabadiidka ah oo ayagu ku soo duulay deegaan nabad ah degmooyin nabad ah dad nabad ah iyo weliba maamul jira iskuna dayay inay carqaladayaan nabadii deegaamadaas iyo degmooyinkaas ka jirtay ilaahay fadligii ciidamada dawladdu waxay gacanta ku hayaan dhammaan degmada Gurceel waxaa u suurto gashay inay gacanta ku soo dhigaan maxaabiis fara badan oo ahay dadkii ka dagaalamayay qaybo ka mid ah degmada Gurceel isla markaasna carqaladaynaya nabadii ka jirtay degmada waxaa loola dhaqmay si wanaagsan ciidamaduna waxay u taxaabeen xabsiyada waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka reer Gurceel ee ku sugan magaalada dhexdeeda magaalada waxaa ka socda howlgal emergency ah howlgalkaas oo ciidamada dawladdu ay ku raajoogaan ama ay ku baacsanayaan qolooyinka nabaddu ay dhibtay waxaan u sheegaynaa marka dadka reer Gurceel inay guryahooda ku nagaadaan dadka shacabka ah magaalada dhex jooga guryahooda inay ku ekaadaan aysan soo bixin howlgalkaasi inta uu socdo si loo kala saaro dadka nabadiidka ah iyo dadka shacabka ah oo magaalada dhexdeeda jooga waxaan rabaa baaq labaad inaan u diro qolooyinka weli ku harsan meelaha yarka ah ee farakutiriska ah